magaalada Baydhabo waxaa ka taagan xiisad aad u kacsan. Xiisadanna waxay timid kadib markii qaybo ka mid ah magaalada Baydhabo lagu arkay ciidamo daacad u ah madaxweynihii Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. Waxaana halkaasi lagu arkay ciidamo taabacsan Laftagareen oo daraawiishtii Koonfur Galbeed ah. Inkastoo wax iska horimaad toos ah uusan dhicin, haddana dadka deegaanka cabsi aad u xooggan ay arrintaasi ku abuurtay, maadaama loo bartay in markastoo ciidamadaasi magaalada ay kusoo dhawaadaan dagaal uu dhex maro iyaga iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ay geysay halkaas. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka xogta wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah ciidanka cabdicasiis xasan maxamed Laftagareen oo xaafadaha magaalada Baydhabo gudaha u galay. Maxay tahay sababta ay gudaha ugu galeen magaalada Baydhabo? Sidee ayay ugu suura gashay inay gudaha ay u galaan maadaama ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo oo laga dareemayo xaalad kacsanaana iyo xaafado badan oo laga barakacay? Xaalku waa sidee? qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso laba waxaan idinku haynaa barnaamijkeena xulashada wararka oo aan ku dul istaagi doono wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Baydhabo iyo weliba xaaladdu sida ay tahay. Dadka reer Koonfur Galbeed weli waa ay dhigbaxayaan, xabad ayaa ku socota, wayna labada dhinac waxaa u dhaxaysa colaad muddo dhowr bilood jirta. Sidee xal nabadeed loogu dhamayn karaa arrinta Koonfur Galbeed? Maxay tahay aragtidaada? Nala wadaag fikirkaaga oo qaybta faallada noogu soo gudbi. Haddii aad ku xiran tahay page-ka barnaamijka la gare oo share gare, haddii aad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshadana ku soo biir oo channelka subscribe noo saar. magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaq xooggan oo ay wadaan ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, iyadoo xaafado badan oo ka mid ah magaalada ay soo galeen ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyadoo la ogeyn ujeedada rasmiga ah ee ka dambeysa ee ay leeyihiin inay gudaha u galaan magaalada Baydhabo iyo waxa ay damacsan yihiin. hase ahaatee ilaa iyo hadda waxaa la sheegayaa in xaalad adag ay ka taagan tahay gudaha magaalada, dad badanina ay cabsi darteed uga qaxeen xaafadaha ay ku deganaayeen iyo goobaha lagu arkay ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen xilli kasta, maadaama ay bilaaban karto xabad oo magaalada ay xabad ka dhici karto ciidamadu ay isku dhici karaan. ciidanka ayaa la sheegayaa inuu ilaa iyo xalayto xilli dambe ay wadeen roondo iyadoo la arkayay gaadiidkooda gaashaaman oo wadooyinka magaalada isticmaalaya, iyagoo waliba si cabsi la'aan u socda meelo kala duwan oo ka mid ah hareeraha magaalada. ciidanka ayaa waxaa la sheegayaa in xaafadaha inta badan ay ku jireen ilaa iyo xalayta ilaa saaka waa berigii hore, taasi oo keentay in dadka deegaanka ay cabsi xooggan ay dareemaan. hase ahaatee waxaa la sheegayaa in dagaal toosa uusan ka bilaabin gudaha magaalada, waxa badina aysan dhicin. waxaa wararkaas oo dhan la socday oo isku soo dubariday wariyaheena Cabdiraxiin oo ka wareysan doono wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Baydhabo iyo hadda xaaladdu sida ay tahay. Cabdiraxiin soo dhawow, bal waxaad nooga warantaa magaalada Baydhabo xaalkeedu waa sidee? maxaan war ka haynaa? magaalada Baydhabo waxaa ka taagan xiisad aad u kacsan. xiisadanna waxay timid kadib markii qaybo ka mid ah magaalada Baydhabo lagu arkay ciidamo daacad u ah madaxweynihii Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. waxaana halkaasi lagu arkay ciidamo taabacsan Laftagareen oo daraawiishtii Koonfur Galbeed ah. Inkastoo wax iska horimaad toos ah uusan dhicin, haddana dadka deegaanka cabsi aad u xooggan ay arrintaasi ku abuurtay, maadaama loo bartay in markastoo ciidamadaasi magaalada ay kusoo dhawaadaan dagaal uu dhex maro iyaga iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ay geysay halkaas. wax dagaal ah hadda ma jiro. waxaa xaqiiqo ah in ciidamo taabacsan Laftagareen ay gudaha u galeen magaalada Baydhabo, isla markaana si nabadgelyo ah ay halkaasi ku tageen. maxay ahaayeen markaa ciidamadani? ma howlgal gaara iyagu wadeen? ma iyaga howlgal gaara waday? ma cillad kale ah? ma qorshe kale u yimaadeen? maxayse tahay ciidamada dowladduse ma oga miyaa in ciidankaasi ay joogaan gudaha magaalada Baydhabo? sababta ciidamadaasi ay u tageen aagaasi waxay ahayd wuxuu daba socday howlgalladii dhawaanahanba halkaasi ay ka wadeen ciidamada daraawiishta kala duwan ee Koonfur Galbeed ee taabacsan Laftagareen. howlgalkaas buuna qayb ka ahaa dabcan, waxaana dhowr jeer ay sheegeen inay markaan diyaar u yihiin inay qabsadaan. waxaana haatan xogta soo baxaysa ay muujinaysaa in howlgalladan ay hordhac u yihiin howlgallo culus oo maalmaha ina soo aadan ay qorsheenayaan maamulka taabacsan Laftagareen in ay ku qaadaan gudaha magaalada Baydhabo, isla markaana ay la wareegaan. waa gartay. ilaa iyo hadda ciidamada kale oo dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan kama warhelin miyaa in ciidamadani ay soo galeen gudaha magaalada Baydhabo? wax
waxayna dhufaysyo ka qoteen gudaha magaalada laamiyada waaweyn iyo bartamaha magaalada. ujeedka rasmiga ah ee qorshahaasi ma cadda, laakiin waxaa xusid mudan in ciidamada ay dib ugu laabteen gudaha magaalada Baydhabo kadib caleemasaarkii Aadan Madoobe. arrintaas waxay u muuqataa in Aadan Madoobe markan uu doonayo gudaha magaalada inuu isku ilaaliyo, isla markaana uu aad uga taxadaro in magaalada banaankeeda uu xoogga saaro oo halkaas khasaaro uu kasoo gaaro, bedelkeeda gudaha magaalada uu kula diriro waqti garan haddii uu soo weeraro magaalada. cabdiraxiin markaa ma la ogyahay ilaa iyo hadda qorshaha ay ka leeyihiin in qaybo ka mid a magaalada ay maaragtay ay joogaan? sababtuna waxay tahay ujeedkooda ma uusan ahayn inay meel qabsadaan oo ay haystaan. qorshahoodana waxa uu qayb ka ahaa howlgallada isdaba joogga ah ee muddooyinkii u dambeeyay ay wadeen ciidamada taabacsan lafta gareen, oo ay sheegeen inuu yahay howlgallo la doonayo in lagu xoreeyo deegaanada koonfur galbeed oo ay ku tilmaameen salbalaar iyo afbalaar in ay ka xoreynayaan. marka howlgalkan waxa uu ahaa howlgal indhaindhayn iyo kormeer iyo roonda isugu jiray, isla markaana ciidamada ay halkaasi u tageen. haddii dabcan ciidamada dowladda federaalka aagaasi ka dhawaan lahaayeen oo joogi lahaayeen, waxaa xusid mudan in halkaasi israsaaseen ay ka dhici lahayd, balse ciidanka magaalada ayaa waxa ay joogaan goobo magaalada bartankeeda ah oo laamiyada gebi ahaanba xaafadaha magaalada yani ku teedsan way isaga soo guureen. weliba xilliyada habeenkii aagaas ma tagaan sida xogtu ay tilmaamayso, dadka deegaankana ay sheegayaan. waayahay caawa waxaa la arkaya iyaga oo gaadiid tiknika oo tiro badan wata ciidanka lafta gareen oo mataqaana ay ka gudbaya hareeraha iyo dhinacyada magaalada Baydhabo. dhaqdhaqaaqaasi ay wadeen muxuu ahaa? ciidamadaasi waxa ay qayb ka yihiin saan horeba xogtan ugu xusnay ciidamada dhaqdhaqaaqa ciidanka wada duleedka Baydhabo ee taabacsan lafta gareen. ujeedkooduna yahay sidii ay ku qabsan lahaayeen magaalada Baydhabo oo haatan uu ku shaqeeyo maamulka hogaamiye Aadan Madoobe ee dhawaan halkaasi lagu caleema saaray. dhowr jeer oo horena saraakiil u hadashay iyo afhayeenka dhinaca koonfur galbeed ee lafta gareen waxay sheegeen in ay qaadi doonaan howlgallo culus xilli saacadihiina weydaartayba ay shacabka digniin u direen oo ay sheegeen inay guryahooda ku nagaadaan, isla markaana ay ka fogaadaan dhammaan goobaha ay degan yihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Aadan Madoobe ee taabacsanba. digniinahaasi wixii ka dambeeyeyna waxaa kordhay dhaqdhaqaaqa ciidan ee ay sameynayaan ciidamada daacadda u ah madaxweynihii koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. waxaana haatan magaalada cabsi ka taagan cabsi xoogan, gaar ahaan xaafadaha ay galeen ciidamada lafta gareen. durbo barakac ayaa u muuqato in haatan uu bilowday, arrintaasoo sababteeda ay leedahay dhaqdhaqaaqyada iska soo horjeeda ee markaan ka taagan gudaha Baydhabo iyo sidoo kale banaankeeda. waayahay Aadan Madoobe maxaa qorshe u ah marka haddiiba gudihii magaalada lala joogo ciidamadii lafta gareenna magaalada dhinacyadeedii oo dhan ay hadda ku sugan yihiin oo xaafad walba ay joogaan, maxaa Aadan Madoobe qorshe u ah? qorshahiisa hadda rasmiga ama xaqiijin karo, laakiin waxaan xogta ku haynaa in mar kale Xasan Sheikh uu ka dalbaday ciidamo dheeraada in la siiyo oo uu isaga dulqaado ama isaga difaaco culayska kasoo wajahayo dhinaca lafta gareen. qorshayaal dhowr ah ayuu haatan u degsan oo ay ka mid tahay sidii uu dagaal ula geli lahaa. horta marka koowaad inuu wada hadal uu ku dayo. haddaba daawade, dadka reer koonfur galbeed weli waa ay dhigbaxayaan, xabad ayaa ku socota, wayna labada dhinac waxaa u dhexaysa colaad muddo dhowr bilood jirta. sidee xal nabadeed loogu dhammayn karaa arrinta koonfur galbeed? maxay tahay aragtidaada? nala wadaag fikirkaaga oo qaybta faallada noogu soo gudbi. haddii aad ku xiran tahay page-ka barnaamijka like oo share gare, haddii aad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshadana ku soo biir oo channelka subscribe noo saar. barnaamijkeennina waa intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.